halkan waxaan rabaa inaan ku gudbiyo fariin ku aadan dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba. Waxaan rabaa inaan uga hadlo cudurkan cusub oo la yiraahdo coronavirus. Ilaahay ha naga badbaadiyo dhammaanteenba. Kaliya in dadaal fiican la sameeyo. Waxaan ugu muhiimsan laba shay. Mid waa kow in la isku dayo marka hore salaanta in la joojiyo gacanta oo dadku salaanta islaamka isku salaamaan masaafo fiican ay kala fadhiistaan aysan hoos iska gelin. taas oo qodob arrintaas aadan u adkayna dadka Soomaalidu aad waxay u jecel yihiin gacmaha isku salaamaan. Runtiina arrintaas caafimaad ahaan inaysan fiicnayn xoog soo baxday gaar ahaan xilligan adag oo la marayo cudurkan aadka u faafa coronavirus la yiraahdo in la joojiyo. sababtaan u leeyahay waxay tahay maadaama mu'asasada caafimaadka ee dalkan ka jirta aysan awood u lahayn ay qabato shaqo badan oo ku aadan arrimahaas. dadku ay ku dadaalaan in la iska ilaaliyo wax kastoo keeni kara. labo taabashada faraha badan oo meelaha dadku ay wada qabsadaan oo gacmaha lagu taabta iyadana aad in la iskaga ilaaliyo. midda saddexaad ugu muhiimsan waa dhaqashada gacmaha dhaqashada oo la joogteeyo mar walba. waa wax la heli karo suuragal saddexdaas shay oo sameyn karno. in si fiican gacmaha loo dhaqo xilli kasta xoogaa yar markaa joogtada inaad dhaqdin waa waxa ugu muhiimsan oo aad heli kartid. biyo waa haysanaa, saabuunka waa heli karnaa. waxaa jira daawo loogu talagalay gacmaha oo ayagana jermiska dila. ayagana haddii aad heli karto waa kasii fiican, laakiin haddaadan heli karin waxaa kugu filan inaad gacmahaaga si wanaagsan oo saabuun ku dhaqdo. kadibna aad iska ilaalisid inaad habatid meelaha laga yaabo inuu viruskaas gaarayo. ilaa hadda waa la fiican yahay dalkan. waxaan u maraynaa wasaaradda caafimaadku ilaa hal qof inay sheegeen maanta. taas ayaa laftigeeda u baahan inaan taxadirkeena muujino. waa wax aad iyo aad u fudud aan samayn karno. ilmaha in lagu barbaariyo, dadka waaweyn iyo dadka oo dhanba inay sameeyaan in gacmaha la dhaqdo. waa waxaan kari karno. waa wax mataqaanaa nadaafadeena kor u qaadaya iyo caafimaadkeena. alwiqaayatu khayrun min alcilaaj. daawada ama inaad isdaaweyso waxaa ka fiican inaad marka horeba aad isku dadaashid. cudurradan marka annaga ilaahan aaminsannahay, haddana dadaalka waana la faray. cudurka dhammaanteen baa allah naga koriyo daacuunka la yidhaha waxaa la isfaray haddii uu yimaado qofku meesha uu joogo inuusan ka tegin. marka cudurkan xagga fididda wuxuu u egyahay cudurka daacuunka. marka inaan kula dhaqanno sidaas oo kale oo aan ku dadaalno inaan gacmaheenna dhaqno, salaantana la joojiyo oo afka la iska salaamo ajirkeeda leedahay. afka haddaad qofka ka salaantid waa kugu filan tahay. iyo gacmaha laga ilaaliyo meelaha jaranjarooyinka oo la qabsado iyo meelaha dadku ay wada qabtaan oo matalan haddii aan rabo albaabka inaan furo waxaan samayn karaa inaan sidaas u furo. kaasaan isticmaali karaa kadibna horaan tuuri karaa. aad waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi.